laakiin waxaan su'aal idin qabaa ma hadday sidaas jirto sababta Somaliland marka aan loogu diidaayo inay goosato maxay tahay ka fakar yey ku qaadin caadifad iyo qarrac lama rabo Somaliland waa dad walaalaheena waaye dad walaalaheena waaye sababta loogu diidaayo marka inay goosato marka maxay tahay sababta loogu diidaayo ha fasaxa marka Somaliland waayo haddaad dhiibaysaan oo bari inta isu imaataan oo sabti ah aad dhihi doontaan waa sax go'aankii golaha wasiirada oo waa sax maxay ahayd wixii ninkaan lagu dhiibay haddaad bari dhihi doontaan waxba dadkan Soomaaliyeed cuqdo intaa ugu filan waxba cuqdaha kala gelinina Somalilandna u ogolaada inay wadan gaar noqoto waayo shanta Soomaaliyeedba idinka kala diraya idinka ayaaba shanta Soomaaliyeed kala diraya hadda runta rabtaan wareen run bay ku ooyaan run baa leedin sheegaya hadda runta rabtaan idinkiiba shanta Soomaaliyeed kala diraya calankan shanta maxay ahayd xidigta shanta gees ku taalana naga ana ka jecel naga dhaafa hees kala nootala cagaar iyo jaalle iyo buluug iyo madow isku kaaya dhextala qof walba hilifo tolay ayaan taane hilif kala nootala Somalilandna fasaxa ha waayo institutionkii oo dhan idinka kala diraya wixii shanta Soomaaliyeed ma jiro shan Soomaaliyeed mana soo socon laakiin wixii shanta Soomaaliyeed qalbiga ku dhisanaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed institution noo aha ayaad idinku kala diraysaan ogaada mar haddaad kala dirtaan oo NFDna ay haysato Kenya haysato Ethiopia aatan u saxiixdaan ya ilaahay kuma samadiide Djibouti anaga marka hore idan ku biirada ay wadan idin ka noqoto sababta Somaliland kale looga laadsada waa qalab ya wax iga jecel maanta in midnimo Soomaaliyeed la helo ma jirto laakiin haddana wixii aan soconaynin oo qalad waa in la istuso waa inaad ku baraarugtaan ya xasan sheekh damage badan uu soo gaarsiiyay ya runbaan idin sheegaya walaalaha waqooyiga fasaxa ayakana haddaad barisaas dhihi rabtaan fasaxa way u haysataan 27 sano ayay inta nabad samaystaan ay dawlad samaystaan ay kala dambayn samaystaan ayay dad nool oo meel iska bixiyo noqdeen adiga marka walaalka dhacaa waaye maxaa u xasbaysaa ya maxaa u xasbaysaa حسبنا سي مركا سي قوسشوها وأقلوا وطن هالنقدان Somaliland وايو أديجي الدولة دعها أيا institution كشانت الصوماليات نحن كل فنوية هذا أقادين يا قبل كأقادين ده كان مدة كلا يسكو خلدا Somaliya هيسكو خلدنا أقادين وقبيل قبل كأقادين وقبل كأقادين أو قبيل أقادين كلي أنو دقن أو دق Somaliya أو دل أي دكتور أقادا هيسكو خلدنا يا walaalihina waqooyiga u fasaxa hanqadana wadan gaar ah yeesha xuduud yeesha wada shaqayn yeesha baasaboorka kala gaar ah derisnimo ku wada noolaada hadii kale go'aankan ka fiirsada intii caawa haysataan bari inta isu timaadaan hadaa rabtaan inay tiraahaan go'aankan sax buu ahaa adeereyaal waxaas ma soconayaan ya hadalkaygi marka waa soo gabagabaynaa qadkii cawada waa igu dheeliyo kii qad ahaa aad iyo aad igu dheela walaalayaalow runta lagama raysto runta waa xaq waaye si islaamiyana waa wargaalka oo ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyay ayaa run sheega adiga oo